Paul Scholes oo si kulul u shaaciyay qaladka ugu weyn ee uu Robben Amorim ka galay Bruno Fernandes. Xilliga Manchester United Paul Scholes ayaa shaaca ka qaaday isbeddelka ugu weyn ee loo baahan yahay in tababaraha kooxda Robben Amorim uu hirgeliyo, isagoo sheegay in ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda Bruno Fernandes uu ka daalay kaalinta uu hadda ciyaaro. Scholes oo ka hadlayay barnaamijka Sky Sports ayaa ku dooday in Fernandes laga ciyaarsiinayo meel uusan ku soo bixin, taas oo ka qaadaysa tayooyinkiisa ugu muhiimsan ee hal-abuurka. Fernandes mar walba wuu dadaalayaa, laakiin booskan oo u baahan shaqo difaac ma aha booska uu ku fiican yahay. Wuxuu ku soo baxayaa lambarka 10aad ee dabiiciga ah, waxaana la dhimay awoodiisa saameyn ee ciyaarta, ayuu yiri Scholes. Dhinaca kale, markii hore isaga ayaa daboordayay. Uu ka qoomamayn doonaa wuxuu igula kacay. Vati Vasquez oo Lamine Yamal ku furaysa dacwad halis ah. Haweeneyda caanka ka ah baraha bulshada Vati Vasquez ayaa sheegtay inay qorsheynayso tallaabo sharci ah oo ay ka qaado xiddiga Barcelona Lamine Yamal kadib markii magaceeda lagu sumcad dilay warar ku saabsan xiriir jecel oo la sheegay inay wada jilayeen. Arrintu waxay soo ifbaxday markii Vasquez iyo Yamal lagu arkay fasax ay wada qaateen, taas oo dhalisay hadalhayn iyo eedeymo badan oo baraha bulshada ka dhan ah. Inkasta oo ay aflagaado badan la kulantay, Yamal ayaa si degdeg ah u beeniyay xiriirkaas, taasoo Vasquez u aragtay bahdil aad u weyn. Fadeexadda ayaa sii xoogaysatay markii la sheegay in Yamal uu xiriir dhab ah la leeyahay gabar lagu magacaabo Nicole. Vasquez ayaa la fahansan yahay inay dareentay khiyaano, iyadoo ku doodaysa in Yamal uu magaca iyada u oggolaaday in lagu ceebeeyo, halka uu xiriirkiisa dhabta ah qarinayay. Qoraal ay dhowaan soo saartay ayay ku sheegtay inay ka daashay cayda iyo beenta lagu bartilmaameedsaday, isla markaana aysan kala labayn doonin inay maxkamad la tiigsato Yamal si ay sumcaddeeda u ilaaliso. Arteta oo warweyn ka soo saaray dhaawaca Bukayo Saka. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay xaaladda Bukayo Saka kahor kulankooda ugu horeeya ee Champions League xilli ciyaareedkan, kaas oo ay kula ciyaari doonaan Athletic Club magaalada Bilbao. Markii la weydiiyey goorta Saka dib ugu soo laaban karo garoomada, ayuu Arteta yiri: "Ma jiro wax war ah oo cusub. Weli waxaa jiro arrimo badan oo la hubinayo. Aad bay u adag tahay in la fahmo toddobaadka uu diyaar noqon doono. Fuwaal wuxuu ku dadaali doonaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u soo laabto." Ugu dambeyntiina, Lewandowski ayaa yiri: "Haddii aysan Ronaldo iyo Messi ahaan lahayn, waxaan haysan lahaa dhowr abaalmarin oo waaweyn." Weeraryahanka Barcelona Robert Lewandowski ayaa dib u milicsaday tartankii isboorti ee uu la lahaa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo intii uu ciyaarayay ciyaaraha heerka sare. "Waxaan ciyaaray xilli ay Ronaldo iyo Messi ku lulamayeen saaxadda ciyaaraha, waxaana la dhihi karaa haddii aanay joogi lahayn 15 sano ee la soo dhaafay, laga yaabay inaan horyaallo badan iyo abaalmarino kale ku guuleysan lahaa." Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo caalamka. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii sheer gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.